degmada garadaga galbeedka gobolka Sanaag waxa bilihii ugu dambeeyay ka socday dhismaha jaamacadda hab casriya loo dhisayo magaceedana la yiraahdo Leeds University jaamacaddan dhismaheedu si xawliya uga socdo duleedka bariga degmada garadag ayaa saaka qaybo kamid ah warbaahintu booqatay iyadoo isla waqtigana ay si habboon uga socoto shaqada dhismaha jaamacadda waxayna la kulmeen injineerka guud ee hadda dhismaha jaamacadda gacanta ku haya Saciid Axmed Suufi oo kamid ah injineerada dhismaha hadda jaamacadda gacanta ku haya ayaa isla goobtaana kula kulanay sidoo kalena faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay habka dhismaha jaamacaddu u socoto halkan aynu joognaa xogay dhismihii jaamacadda sida idin wada muuqata jaamacaddii waxay ku dhowdahay dhamaystirkii qaybtan nimka joognaana waa qaybtii adminka jaamacadda maamulka deglaha kulli qaybaha kalena waad aragtaan xilli gabagaba bay ku jirtaa si wanaagsan dhismuhu u socdaa waqtigii loogu talagalay inuu ku dhamaado ayaan aad ugu rajo weynahay tayada dhismuhuna sida muuqata isha macallin qof waliba uu arkaa sida u socoto naqshadii iyo dhisaynkii loogu talagalay in la siiyay inuu sidii u fulay way muuqataa marka waxaan u sheegi lahaa dadweynaha deegaanka iyo cid kasta oo danaynaysa inay ka qayb qaadato haday tahay dhiirigelin iyo haday tahay waxtar kaleba oo u furan tahay si wanaagsan bayna u socotaa warbixino kuwan ka horeeyay oo fara badan oo xafilayaa in aan hore telefishinada ee meelo badan uga baxday marka waxaan u sheegayaa in waqtigii loogu talagalay ay ku furmayso sidii loogu talagalayna ay jaamacaddu u furmayso loona diyaar garoobo laguna talagalo waraan maxamed raan